xildhibaankii hore ee degmada Balanbala haatanna ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Afrikada Bari mudane Cabdilqaadir Maxamed oo loo yaqaan Cabdikey ayaa si kulul uga hadlay kulankii looga arrinsanayay nabadgelyada maamul goboleedka Gaarisa. dadweynaha daatiin maanta waxa haysatiin fikrad fursad milasiyay inaad kula hadashaan madaxdiinni aad soo doorateen madaxdii dawladda xubnaha amniga hayeen dhammaan baa meesha fadhiyaan inaad soo gudbisaan codkiinni oo maaragtay aad fursad aan ka yeelano sidii lagu xalin lahaa arrimahan iyaga ayaa maaragtay maanta yaan haysan Soomaaliyeed si hoose haddaan isku hadalno horta talo wixii ku eg madaxdiinni aad soo doorateen aad baan ugu faraxsanahay inaan hadlaya tama mooday madaxdiinni aad soo doorateen waxay ku hadleen arrimo culus ee qaal tusaale fiican bay siiyeen anagana waan isgaranaynaa Soomaaliya taa ninka boosada soo diinay kawalaalkay Cabdi Umar meesha uu hayo markaan ahaan jiray haddaan wax maqlo wax dareemo simban qaad ajira every county iyo every village waxaan leenahay dad mas'uuliyiin oo odayaal soo ma jiraan wali war Yuusuf Xasan oo Balanbala ma ka jira war Alif dhaqana Soomaaliya dhaqana Alif dhaqana faliyo lagleera war dhaqana faliyo maxawar oo ka saaxiibkay fadhiyo Musa Usmaan oo maxawar dhadhaaf xageeda xal sheegay Musa dhaqana karo Gaarisa oo sheeda waase inta sooday marka la hadasho waxa heli war kooban wixii dhacay intuu ka dhacay sareeda dadkii kale intuu ka imaaday maxay ahaayeen inta warkii kooban baa gacanta laga saaray wax naga maqan ma jiro soo run ma xasuus ma garanayo walaalayaal ninka intuu soo kaco tuulo soo galo niman walaalaha anaga oo Soomaaliya aan ahayn oo macallimiinta anaga wax noo aqoonayeen dag ka siiyo ninkaan insaan ku socdo way mooyo horta nin iska socdo oo ka soo kordhicay ma yaasas iyo saanka asaga ninka asaga yaa u sheegay hawsha ayada aakhirta ay leedahay dibka uu geystay anaga ay nagu leedahay dadkii meesha deganaa iyo ummadaba way iska caday marka waxaan ilaahay walaalayaal fursadan aan ka faa'iideysano fikradooyinka anaga aan isku keenano anigana as your regional elected leader I just want to say that the importance of what you are talking about today is not only an issue of importance to Garissa only. It is an issue of national concern. It concerns the lives of Kenyans, and it also is an issue of regional concern. Whenever an insecurity incident of the form of terror happens anywhere in the region, we get that particular report in the headquarters in Arusha. And there are discussions that take place. And the more the nature of those incidents reported in this kind of particular area, it gets flagged up as one of the regional hotspot areas for terrorism. For my own county to be flagged off as one of the regional hotspots of terror does not make me happy. And that's why I am here today with you, joining you here today so that I can take part of this, can be part of this discussion. And finally, Waswahili wanasema, kikulacho kingoni mwako. waxa ku cunahayo jirkaadu ku jira adiga oo dareeri shaqan ku gal marna intuu dhaqab ku siin marna garabka gaayso dhaqab ku siin marna intuu dhaqab ku siin illa isku hurguftood hesho soo bixisane oo dareeriga qaniijo mugadag Soomaaliyeed wananchi wetu ambacho kinatukula kiko miongoni mwetu na tuna uwezo wa kuwatoa tushikane mkono na viongozi wetu